السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلامي دمان أصحابتا كحرن جانال يوتيوب كيغو سلان كدب رون أهانتي maantuna waxayaan jeclaystay in aan idin soo gudbiyo imtixaanaadkii caafimaad. imtixaanaadkeenu caafimaad maantuna waxa ayuu ka hadli doonaa cudurrada lagu kala qaado galmada mid ka mid ah, waliba gaar ahaan cudurkaasi loo yaqaano HIV Human Immunodeficiency Virus. maadaama weli aan ku guda jirno cudurrada lagu kala qaado galmada mid ka mid ah, maanta ayaan rabaa in aan idin fahansiiyo waxa uu yahay. maadaama HIV-gu oo la soo gaabiyay Human Immunodeficiency Virus, haddaba HIV-gu waa maxay? calaamadaha lagu garan karayo waa maxay haddii uu qofkani qabo? haddii uu qofkani HIV soo waxyeeleeyay, sidoo ayuu ku dareemi karayaa in uu qofkani jirkiisu oo HIV ku dhex jiro? haddaba HIV-gu daawo miyuu leeyahay? run ahaantii HIV-gu maadaama uu yahay cudurrada mid ka mid ah lagu kala qaado galmada, run ahaantii HIV-gu waa cudurka oo keliya inta badan oo saameyn u geysta difaaca jirka. haddii uu mar HIV-gan difaaca jirkaagu oo saameyn u geysta, waxa ay hubaal noqonayso in cudur walba oo saameyn u geysta difaaca jirkaaga, cudur walbana waxa ayuu inta badan isku dayi doonaa inuu jirkaagu soo dhex galo. waayo inta badan difaaca jirkeenu waxa weeyaan white blood cells, unugyada dhiigga cadcad. unugyadan dhiigga cadcad inta badanna waxa ay u taagan yihiin in ay difaacaynu jirka ay inta badan ka difaacaan cudur walba oo isku dayi doono inuu soo dhex galo. haddii uu inta badanna HIV-gan oo saameyn u geysto immune systemkaada difaaca jirkaagu, waxa ay hubaal noqonayso in cudur walba oo hadhowdi ku soo dhexgali doono. run ahaantii HIV-gu waa cudurka oo keliya inta badan difaaca jirkaaga hoose u dhigi karayo. haddii uu marna u dhigo difaaca jirkaaga HIV-gan, waxa ay hubaal noqonayso cudur walbana in uu hadhowdi ku saameyn karayo. maadaama cashirkeenu maanta oo ka hadlayo HIV, haddaba waa maxay ereygan loo yaqaano HIV? HIV waxa ayaa loo soo gaabiyay Human Immunodeficiency Virus. HIV waxay u taagan tahay fayraska hoos u dhiga difaaca jirka bini'aadanka. HIV waxa ayuu dhaliyaa AIDS-kuna waxa ayuu u taagan yahay si erey ahaan Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS-kuna waxa ayuu u taagan yahay astaanta la qaado ee hoos u dhaca difaaca jirka. qaadashadu micnaheedu waa wax aan la iska dhaxlin. hoos u dhaca difaaca jirka micnihiisu waxa weeyaan burburka difaaca nidaamka difaaca jirka. astaanta waxaa loola jeedaa cudurro badan oo laga yaabo inay la xiriiraan cudur kale. xaaladdu markii ay sidan tahay, cudurrada ka faa'iideysta nidaamka isdifaaca jirka oo daciifa ayaa loo isticmaalaa in AIDS-ku ka mid yahay. haddaba sidee baa loo qaadi karayaa HIV? HIV waxa ayaa lagu faafin karayaa iyadoo loo galmoonayo farjiga qof qaba HIV aanan la isticmaalin wax ka ilaaliya. haddaba haddii aad rabto in aad ka hortagto qof qaba HIV aadna rabto in aad la galmooto, waa in aad xirataa ereyga loo yaqaano condom. waayo inta badan haddii aad rabto in aad iska ilaaliso cudurkaas, aadna rabto inaad sameydo galmada, waa in aad isticmaashaa mar waliba kondomkaasi. waayo inta badan kondomkan waxa ayuu ka ilaalin karayaa oo keliya cudur kasta qofkaasi uu qaba. sidoo kale HIV-gu waxa ayaa lagu faafin karayaa
iyadoo la wadaagidda qalabka la isku duro qofka qaba HIV. sidoo kalena HIV-gu waxa ayaa lagu faafin karayaa hooyada qabta HIV inay ilmaha qaadsiiso inta uu uurka ku jiro. markii oo dhalanayo ama xilliga naasnuujinta, inta badan cunugan markii uu ku jiro uurka hooyadiisa, waqtiga oo idil hubaal ma noqon karto in uu cunugaasi asigoo meesha ku jira HIV haddii ay hooyada qabto in uu ka qaado, balse xilliga dhalmada waxa ay hubaal noqonayso haddii oo la kala badbaadin waayo in cunugaasi iyo hooyada oo hadhowdi meesha uu ku jiro minka cunugaasi markii laga soo saarayo xilliga dhalmada, waxa inta badan la kala ilaaliyaa cunuga iyo hooyada. haddii oo cunugaasi meesha uu ku jiro ay tahay amniotic fluid, meesha inta badan biyaha uu ku jiro, hadhowdi haddii ay meeshaasi dilacdo waxa ay hubaal noqonayso in cunugaasi hadhowdi dheecaamada ka imaadeen hooyada in afkiisa hadhowdi uu ka qaato ama balasinta uu ka qaato. inta badanna waxaa muhiim ah xilliga dhalmada in la kala fogeeyo ama in la kala badbaadiyo hooyada iyo cunuga, waayo khatarteedu ay leedahay waqtiga. xilliga naasnuujintana inta badan waa ayuu u fudud yahay in cunuga hooyada haddii ay qabto lacalla HIV uu ka qaado. run ahaantii HIV-gu waxa ayaa lagu faafin karayaa oo keliya badanaa galmada aan la isticmaalin kondomka iyo wadaagidda irbadaha la isku duro, balse marna ma ka qaadi karaysid HIV-gu cayayaanka, xayawaanka, fadhiga musqusha, mucaanaqaynta, gacan qaadka, salaanta. yacni qof qaba HIV haddii aad is salaantaan hubaal ma noqonayso in qofkaasi cudurka qabo in aad adigana ka qaado. sidoo kalena HIV marna ka qaadi maysid alaabta guriga taalo iyo barkadaha dabaasha. sidoo kalena HIV-gu laguma faafin karayo xiriirka qoyska iyo bulshadeed ee caadiga ah. run ahaantii HIV-gu marna kuma noolaan karayo wax badan jirka dibaddiisa, waayo waxa ayaa dili karayo warankiilada caadiga ah ee guriga ama saabuun iyo biyo diiran. run ahaantii cashirkeenu HIV-gu weli ma uusan dhammaanin, waa ayuu soconi doonaa. qaybtanna waa qaybta koowaad. qaybta labaadna waxa ayuu ku hadli doonaa cudurkani HIV-gu sida ugu fudud lagu kala qaadi karayo, ama haddii aad la galmoonayso naagtu, si tusaale ahaan galmada afka oo kale ma lagu qaadi karayaa HIV-gu xilliga. cashirkeenuna ayuu ku hadli doonaa qaybta labaad. fadlan la soco, iskuna day inaad channelkan ku xirnaato.